الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبك السوماليلاند ميل ay joogaan baa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xanuunadan wareegaya ilaahayna ka badbaadiyo caafimaadina siiyo itaalkeenu waa yar yahay ilaahay inuu isagu inoo hiiliyo waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa inuu bisha Ramadaan inagoo caafimaad qabna oo fayow inay inoo timaado inuu kuna dhamaato waxaan maanta halka isu soo taagnay inaanu baaq diro ku saabsan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Fadhigaab waxaynu ognahay in muddo badan deegaanka Ceelafweyn iyo deegaanka Fadhigaab muddo kooban ahaa colaadda ay xilliyo kala duwan ka dhacday colaadaha waxaan khasaare naf iyo maal ahayn oo laga dhaafay ama laga kororsaday inaanay jirin waxa kale oo laga kororsaday oo laga dhaafay qax kala lun dhaqaale burbur waxbarasho la'aan caafimaad la'aan iyo in allaale intii bini aadamku u baahnaa ee nolosha asaasiga ahayd uga baahnayd oo maxaan ku dhahday halkaa lagu waayo waxaynu ogeyn in nabad la gaadhay insha allahu tacaala ilaahay waxaynu uga baryaynaa labada ardaaya hore ee nabadda gaadhay in ilaahay nabadda u adkeeyo waxaynu kula dardaarmaynaa waxa cusub ee ka soo cusboonaaday Fadhigaab inaanay noloshoodii iyo nabaddoodii waxba ka bedelin waxaanu baaq u diraynaa dadka reer Fadhigaab ee shalayta colaadda cusub ee ay ku dhex martay iyo laba wiil ka hor shaqaaqa ka dhacday marka hore wixii wax ku gaadheen waanu ka tacsiidaynaynaa wixii caqliga qaba ee caqli qabana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo nabadda ku soo noqda oo colaadda joojiye waxaanu cambaaraynaynaa wax laale wixii ka taliyey in dhibaatayntaa leega ay dhacdo nafa ku baxaan ku dhaawacmaan dhul ku gubto aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa waxaanu isleenahay inaanay dadku caafimaad qabin oo fayoobeyn garan waayey waxa ay isku dilayaan iyo waxa ay hadhow ka kasbi doonaan iyagoo inta ka khasaare badan oo dhimasha ku dhacday oo dhaawac ku dhacay oo qax ku dhacay berrito inay nabad u baahan doonaan wax laale wax la kala kororsanayana aanay jirin taariikh badan bay soo martay colaadda Ceelafweyn iyo intii koobneedii hore ee Fadhigaab xukuumaddu juhdi badan bay gelisay sidii ay u soo afjari lahayd ama xukuumaddan ha ahaato ama xukuumaddii ka horreysay ha ahaato muddo dheer bay ku qaadatay adduun badan iyo hawl badan iyo tacab badanna way ku kacday waxaa ka qayb galay dad fara badan oo shacab ah guurti aqoon-yahan culimo cid waliba way ka qayb gashay waxay nala jiitantay mar walba iyadoo dib u furanta ayay nala jiitantay nabaddaa maanta ay ku fadhiyaan labada ardaaya hore waxay guntantay markii labadii ardaa iyagu ay wada fadhiisteen ee ay ka tashadeen siday nabadda u gaadhi lahaayeen mar labaad waxaan ku dardaarmayaa inay nabaddooda xejistaan belooyin ku filan way qaadeen way qabeen way soo arkeen wax dambe inaanay ka qayb gelin ayaan horta labadaa ardaaya hore ku dardaarmaya waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go-aan dowladeed oo ah colaaddaa maanta Fadhigaab ka soo cusboonaatay waxaa lagu gelayaa cudud dowladeed waxaana mas-uuliyadda nabadda qaadaysa xukuumaddaa qaadaysa cid allaale ciddii kale wax ka taraysaa ha ku taageerto xukuumadda dadaalkeeda laakiin maanta cid kaloo loo dirayaa ma jiro aan ahayn xukuumadda hadday ciidan tahay iyo hadday wasiiro tahay iyo hadday xubno kale tahay waxaa nabaddaa tuurta u ridanaya ilaahay inaanu ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo waa xukuumadda taasaanu ku wargelinaynaa cid kasta iyo daraf kasta iyo cid kasta oo ama qayb ka ah ama danaynaysa in nabad la helo taasaanu ku wargelinaynaa warka iyaga saxaafadeed wuxuu daaran yahay arrinkaa wixii hadhay waxaan uga baxayaa wasiirka kale ee igu xiga waana idin salaamayaa bahda saxaafadda
waan idin salaamaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.